بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ardey mar labaad baynu soo noqon insha Allah taala casharkeeni iyo darsigeeni chapterkeeni alhadith wa thaqafa darsigii afraad uguna dambeeyay insha Allah taala ayaan qaadanaynaa hadii ilaahay idmo waa al-asabiyatu wa atharuha waxaynu u naqaan qabyaalada qabiilka iyo saameyntiisa qabiilka maaha waa qabyaalada iyo saameynta ay qofka bani aadanka ah ku reebto ay wadato way alqabaliyatu wa madaahiruha marka kood waxaanu qaadan doonaa balanaynu wax ka qeexano insha Allah taala asabiyada waxa loo yaqaan qabyaalada in wax ka taabano oo aynu qeexitaan fiican u sameeyno kadibna madaahirteeda iyo saameynta qofka ay ku sameeyso bani aadanka kadibna aan ku soo gabagabayno awjuhul asabiyya qaababka ama wadooyinka ama duruqda jidadka ay qofka qabyaaladu ka soo gasho meelaha qofka qabyaaladu ka timaado oo ka soo gasho oo laga yaabo qofka inay saameynta kaga yeelato saddexaas baa uu noqon doona insha Allah taala marka intaynan gelin casharka sharaxaadiisa ardaygu markuu casharka barto fahmo qaada dhigo si wacan u barto waa inuu ka falcelin karaa oo ka jawaabi karaa ahdaaftan soo socota waa inuu xaqiijiyaa ardaygu waa inuu ogaadaa qubhal qabaliyya qabyaalada xumaanteeda casharka markuu ardaygu akhristo si wacan u fahmo qabyaalada xumaanteeda ardaygu inuu wada way waa inuu ogaadaa islaamku inuu mamnuucay joojiyay ogolayna waxa loo yaqaan qabyaalada naha alqabaliyya ardaygu sidoo kale inuu fahmaa qabyaalada waxa la yiraahdaa min caadaati aljaahiliyya waa dhaqamadii ummadihii horeeto oo islaamka ka horeeyay laga soo gaaray bay ahaayeen waliba ummadihii islaamadu waxa qabyaalada ka keentay meelaha ugu badan ka keentay waxa weeye waa carabtaas ayaynu isku dhaqanahay xagga maartay qaab darada iyo qabyaalada iyo waxyaalaha aynu ka inagu qaabkeenu u dhaqano qabiilka ugu dhaqano iyo qaabka carabta jaahiliyada ugu dhaqmi jirtay ayaa isku mid ah qofku ardaygu waa inuu fahmaa inaysan ummadu kala fadli badnayn bani aadanku ma kala fadli badna waxa kaliya oo lagu kala sarmari karaa oo lagu kala fadli badnaan karaa waa taqwada ilaahi inna akramakum indallahi atqaakum billahi subhanahu wa ta'ala bani aadankan rasuulkeena waxa ka sugan inuu yiri عرب عجب كما فضل بدنا عجبنا عرب كما فضل بدنا مدونا عدان كما فضل بدنا عدانا مدو كما فضل بدنا كلكم من آدم وآدم من تراب لما أنت نبي آدم بتكتم عدين آدم نعيد على أبوري عليه السلام وحويه إلا بتقوى الله قفكو عبسد إلهي بالو كلا ترمري كلا وحكا سوكية أولو كلا ترمري كلا مجران نواصل مركا هريبين أسعوننا إن شاء الله تعالى عصبية وحا لغا كياني كلمة دتان تعريف كيدي غيحتان كيدا من العصب وهو الطي والشد وحا لدوبي سو أرق لو دوبي لو أتكي سيدا لسو جرانجريو لو أتكي لو دوبي وحا لو يغانا عصب حق اللغة عصب الشيء يعصبه عصبا بمعنى طواه ولواه وشده شيء كان وو أتكي ولا لا واسكو دوبي واسكو أتكيوي قولك لو واحد دهن التعصب هو المحاماة والمدافعة تعصب هذا مغشد تعصب معناها هو ننجي عليسي والمحاماة والمدافعة إن تقف ضده والدفاع له أما بعد كل دفاع أما حق الدفاع واحد أنت كل دفاعه إن تقف دفاع له وحلو يغنى التعصب قف كاس الدفاع له قف كاس ضده مرة ما كنت مقعد على سوق هذا بقى تشريعك وتبي صديق نبا وقل جلسة حاجة هذا إنه رأسي ونا عصبة وحلي هذا الأقارب وقرابة من جهة الأب حق أباها كتم هذا عصبة وقرابة حق اللغة أباها حقيسة كتم هذا عصبة الرجل بمعنى أولياؤه الذكور ممن يرثه وضدك حق أبيه كيمارة اسكو أباها يهين حق سرى كيمارة وأولياء دي سأة ومسؤولية دي سأة ولبك عن ولي بدمر هاينا لبك أو وحوي حق دحالك مركل تشوجه بيسان غنيسا أو ضدك دحال يا أسا كاملة سموا عصبة لأنهم عصبوا نسب كيس يكون هاريسي حريرها يكحيجا وتصارهن وعلو يغانو أحاطوا به فالأب طرف أبو حق سلوكاتشلا والابن عنقاؤنا حقه سلوكاتشلا والعم جانب أديرك جسم كاحيجا والأخ جانب الآخر مركز الأسبوع هذا واحد نغنيان العصبات أكو هريسي مركز عربتي هوري عصبة waxay u yaqaaneen qaraabatu rajul bimaana atrafa عصبة marka magacyo kale waa leedahay al-asaba wal-isaba iyaguna bimaana jamaa qawlu ta'ala ba kamida nahnu usba ay jamaa
حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض إلا بدأت كوحد عن ير الإسلام كهدي الله بابيه دجالك بدر به هدي الله بابيه تبدأ بأدونك وحلا عبد الله مركا عصابة هي عصبة كل هذانا وجماعة عصيب هذا مغش كلمة عصيب ريبحين هذا بمعنى شديد هذا الكلام سبحانه وتعالى هذا يوم عصيب أي شديد معنى أضج مركا عصبه سياس أي أو بدن حاجة استلاحة هذا نفيرنه استلاحة أما حاجة قيحيتان كذا حاجة شرعية سيالة بدن بالله فسري الشيخ اللي الإمام الزهري كتاب كيس تهذيب اللغة وحكوش يجي إن يتهاي أن يدعو الرجل ننكو إنه أيرته ضد إنه أيرته إلى نصرة عسبته أنا دتك سي قرابديسة إنه جرجار ويدستو وتألم معهم على من يناوئهم كانوا هوسقلوا أو كجمل ما عد كستو أسجع دباتك وهايس إنه كجبيرو مركز عليه عصبه معناه قبيلة وحويه قفك إنه أيرته عدو هيل يجرجار ينصره كهليه كنا ملمو عد دحجله كان دحجله وح الله لو وحي أسجع دباتك وهاي ظالمين كانوا أو مظلومين عدا دباتك وهاي سامع كقدرناته أما أسجع كقدرنادي ابن خلدون وأدوكتين وحكوف السر أسجع عالم وين حق اللغة النعر حكوف السر قبيلة بكوف السر ها عصبية دو حيقولي وقبيلة ها وانا قبيل على كأحرته قبيلة اسمك محل ورسا على ذوي القربى وأهل الأرحام تذكي قرابة كلها حق أعباء إيه أهل الأرحام كذلك اللي هذا وحق هو يكاسو قلا لا بدأ إن قبيلة ستة لا بدأ كبيرتوي ومن هذا الباب حاكمده مركلية النعرة مركلية عسوق ليه الولاء والحلف عدة الإسباهيس الليدين أما جبر كقب أما الديجان لو وراك سيجار إسباهيس عدة الليدين إذ صابت أبي نعرة كل واحد على أهل ولائه وحلفه قف كاستعدوا عن صار إيه علاقات إيه حلف اللي هي حرير وقبيلة ليه يودت كحيجة نبغى تسكت ديجان تيني نكر عدد صاب صدام كايس كود ديجان تكتين بعد بروح ويهيلون الصا ninkaad gabadha ka qabto reerkaad gabadha ka qabto oo xididka kula ah iyo qolo kale haday is qabso xididka gal la jirtaa id na'ratu kulli wahidin ala ahli walaihi wa hilfi marka waa an-na'ra waa qabyaalad buu ku fasiray istilaaxeeda asagana qolo kale waxay tiri waa raabida ijtimaaciya nafsiya shucuuriya tarbid afraad jamaa ma qaa'imatan ala qarabati waxa way isku xidhnaan shabay dhahay bulsho oo xagga nafsiga shucuur nafs psychology oo dareen ku dhisan oo isu keena afraad shakhsi ama jamaacad waliba xiriirkaas waa inuu yahay mid ku dhisan قرابة إصبعيس عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد مركو وقفك إسرائيل خطر بها كسو وجهن ومارتي تدكيساس وصقلوا ويرتو كأفراد وجماعة أو كأفراد أو كجماعة جروب هم باليني صور كفرد فردان مركو إسرائيل عدو وصقلوا وينو كحرين رابطة اجتماعية نفسية عدو وصقلوا ومر الله مركو خطر داريمه وكهوصقلوا خطر تاسو قلك لو واحد يكون قاحين التلاحم بالعصب ووضع دلش والتصاق بالدم ديق إنه كدحيه وضع دلش ديق إنه كدحيه أي كفسرين التلاحم بالعصب هو التصاق بالدم تتكلم ديق يا دلش إنه كدحيه أو التكاثر بالنص ترى أو التفاخر بالغلبة والقوة لا نيرانيمو كل ما قبل هذا كوريجي سمعتي تفاخر بالغلبة والقوة أنا أود بدن بالله هاي قول كنا نجا هاي سنة ولا نديرني ما يكون فسرين العصبية هي التفاخر بالقوة والغلبة أنا ولا نديرني ما يضد بدن أو ضد شيء ومجع الشيكتا وإيريا وحرنت هاي إيريا إذا هاي أي سجل كريم وقت مظاهر ترى محقوين وعورت الشيخ وكبلا مظاهر أنت على جارين هرت قبيلة أما عصبية وحليها هذا hadda ta joogta umada muslimiinta dhexdeeda waxay baaqi ka tahay oo ka soo hartay tii jaahiliga dabarka oday sababtoo abiyo sheekh marka la isu fiirsho madaahirta iyo aragtida wax kuma kala duwana haythu anna madaahir hadhihi takad alla takhtalif an sabiqatiha tii hore ee ummadii hore ku dhaqmi jireen waliba carabta aha iyo tan hadda joogta wax weyn oo farqiga u dhaxeeya male saadaradeed waa isku nasli way isku meel bay ka yimaadeen madaahirta waxa kamid ah madaahirta macnaha waa قاببك الله استعماله مظاهرت قاببك الله استعماله أما سيدتك استعماله وحكمده الفخر بالأحصاب والطعن في الأنصاب نصب كفان إيه نصب ضد فرسيا
nasab kufaan qola nasab baad kufaanaysaa anu reer hebel baan ahay calan baa ku taagan midka kale to saaxiibkaan waxaad ku duraysaa nasabkiisa asaga الفخر بالأحساب نصب هدو في عين وحلو استعمالها حسب هدو حيانا وحلو استعمالها نصب توتر كان هذا نصب يا حديث محوها تنكحوا البراءة ل40 هواني أفر بلوغ رسالة محاو كبيرة مجلتي لحسبها نصب كفي عن وفرسه لنصبها ما ادري عجز لحسبها marka حسب waxa la yiraahdaa wixii lagu faano nasabna waxa la yiraahdaa wixii la isku duro dad fara badan oo umada maanta noola ku faantanka aabayaasha tafakhuru bil aaba'i wal ajdad inaad ku faanta awoowaha iyo aabayaasha والتقني inaad ku heesto oo ku geeraarto bimaathirihim wa amjadihim raadadkii ka tageen iyo saameyntoodii iyo waxyaalaha ay soo hiyeen iyo sharaftoodii iyo asalati ansaabihim ama maarta nasabkooda heersana waxaasu waa wax umada badan maanta ku weyn وتعالي بذلك على من يعدوهم أقل منهم نصبا وحسبا وريادة وزيادة waxaad ugu faanaysaa oo isaga sarreysiinaysaa qof kasto aad isleedahay uu ka hooseeyaa aqalla minhum nasaban وحسبا ها نصب أهم بكاغا هوسيا ريادة البحنمada iyo hal abuurnimada iyo aqoonta waxaasad kaga macnaha adaa kaga horeeyay kaga leeytay siyaadada waa badnaanta laan dheernimada ayaa loogu faanaa waa madharka koobaad weeye oo qabyaaladu qof ka soo gasho waa al-fakhr waa tafaakhur iyo faantan loo faano qidco ama qayb kamid ah dadka qaybta kale u faanto ayaa madharka koobaad madharka labaad waxa weeye dabaqiya kala sarreyn hilbaha inta sarreeyay bal ba iskale inta kala shughulku mal idinku waxa weeye waxa meesha kaba tiidin waxa weeye meelaha iska la falafaysta waxa leedahay kuwa guryaha xaaqa iyo kuwa masaakiinta meelaha maartay baa idinku leedahay laakiin madaxdii wasiirada iyo heerarka sare reer hebel baa iskale dabaqiya leeyahay dabaqiyo umaduna kala sarreyso waa madharka labaad ee qabyaalada loo isticmaalo إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كواسمي سواء بين البشر ولا تفاضل إلا بتقوى الله إلا بالإيمان والتقوى بني آدم ما كان سريان إلا بالإيمان والتقوى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا يسوع ندي سمرك لشودتك وحكا دقي سواسية وح عنك لسرين قرآن كيسا ندي متكودنا متشدين وحلو يقانو قبلي يا غير قبلي كانوا والان دير كانوا والان قاب قرآن وحما يقانا تصميمات كوسورنا يا وركاس قف كان وقبلي ولا ندير كنا ولا نقاب مقعيده مسميات أما مقعيده نوعاس waxay yimaadeen oo dhasheen sanawaat الظلم والتخلف والانحطاط الاجتماعي والتربوي markay dadku baabeen oo dulmiga iyo takhallufka dulmigu waa in la iscuno takhallufku waa dibdhac burburka xagga bulshada ah ama xagga waxbarashada iyo tarbiyada markay yimaadeen ayay arintaas soo baxday waayo waxa kugu daliila xilligii rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo markaas laga soo dadku ka soo kobteen oo ka soo koreen dulmigu ugu xumay adduunka dhacay ka soo kobteen diinta islaamka ama saxaabada nabiga waxa kamid ah Bilaal bin Rabaah al-Habashi oo u dhashay Afrikaan ah iyo Salmaan al-Faris oo Bershiya ka soo jeedin iyo Suhayb al-Rumi oo galbeed ka soo jeedin iyo Ali bin Abi Talib oo Bakr Sidiq oo Caraba oo Quraysh baa saxanka xuquuqda cuni jiray isku saf ku jiray isku af aha isku adinaha ma jirin kana qabali iyo kana qabali يا كان الله ديرها كل أصلاً وليه يا كانوا حماها رسولك عليه الصلاة والسلام وعير من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد قفك يقول صدر الدين تا وحن كميد هاي لأن دين تا كميد معها لا دير يلا نقاب عليه دين تكمل شيء هو في رسوية ولا كلا سرية دين تكمل معها مرك قفك يقول صدر رسولك وعيري فورد الدنيا آخر بقى مردود بيكوتها جو والوجع علنيا مرك مظاهر تيادو أنت سأقوي لا بدأ أصغر بأقوي مظهر ككوباد waxa loo yaqaan al-fakhru bil ahsabi wal ansab nasab kufaan oo qof kale markuu soo istaagay waradayo ka nooca oo kale waxa lama weydiiyay adigu meesha isaga bax meesha rag baa ku wada hadlaya adigu maxaa taa in leeyahay iyo waxa loo yaqaan at-tabaqiyya kala sarreyn reerkaana iskalatan reerkaana waxa meel gama weydiiyo waa madaahirta ay keentay way xukumkeedu qabyaalada marka muxuu hadaynu aragnay madaahirteeda qabyaalada xukumkeedu muxuu diinta islaamku waxay ka dhigtay muharram wa haram وين كدكت أحاديث فربنا بان النبي كعدي عليه الصلاة والسلام وحاو عن حديث كنبي ليس منا ومضى إذا كمن ماها من دعا قفك ضدك أوير إلى العصبية قفك غبيالة أو يعلن كأسته ومضى إذا كمن ما وليس منا من قاتل على عصبية قفك قبيلك أودك على ما ومضى إذا كمن ما وليس منا من مات قفك أودنته نفي مال بأودنته على عصبية هذا قفنا أحمد كبري يا لو يجري أنا كمن ما يو كترسي ده بلاك لو كترسي
rasuulku xadiidka wuxuu ku yiri man qaatala tahta raaya amiyah qofkii ka hoos dagaalama calan indhala oo maxaa indhala aan sakeena marka indhala uu ku fasiraya yaqdab li'asabiyya qabiil buu xanaaqa oo yad'u ila asaba qabiil buu ku baaqa oo yansur asabatan qabiil buu gargaara oo faqatil saa ku dhinta faqatlatuhu jahili wuxuu ku dhintay jaahilnimo ku dhintay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam macna soo bilaadiina buu dhintay ha soo bilaadiina ayuu dhintay marka halka waxa kaaga cad inay arintaas u tahay shay xaraam ah ay ahadiisaas ku cadeynaysa diinta islaamku meesha ay ka qaadat mowqifka ka istaagtay waxa kamid ah diinta islaamku umada waasintay taqriir al-musawa bayna an-nas dadku wasimay diinta islaamku ma ogola wax loo yaqaan imtiyaazaat dabaqiyya aw nufuud al-mawruth dhaqan la kala dhaxlay oo qabiil ku dhisan iyo caadooyin noocaas oo qabiil ku dhisan diinta islaamku ma ogola diinta islaamku dadka way kala sarreysay laakiin halbeeg ay u cuskatay waxa weeye in akramakum inda Allahi atqaakum asaas at-tafaadul at-taqwa wal amal salih qofkii amal wanaagsan oo alla ka cabsada bay diinta islaamku waxay sarreysay taajka sariya maartay koofiyada sarakaasa u xirtay xadiidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka jeediyay khudbadii xajjatul wadaa ba waxa kamid ah ayuha nas ina rabbakum waahid hal rabbi balidi wa anna abakum waahid abihina wa hal mido wa adam khulqa min turab rasuulku wuxuu la fadla ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi wala li ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bi taqwa allah كفى حديث كاسا كوفلا عرب إيه عجم عرب ومركز تدك مارتي تدك وشرف الناس كوري عرب إيه عجم كلا فندم مد عادي مد ما كلا سرية وحكلي أولو كلا هربري كرا وحويه الله كعبسي إيه تقوى الإله عائشة حديث هي ورنيسو وحاجرت جبر لو رنشري المرأة المخزومية كبرنا الصوماليين بيور قروح بدن بيحيد هو قريش هو وحلان ديرة هو مكة مدينة شوكتو أنا عندنا كذا بهالين وقعدنا وقروح بدن رجوا سكوا عرسيان ما أنا بعمل قبل نوع عسل بوحدي حبي حد ما أنت مركي وحدي بوحالي قعنت هالجوي أريد أقول عضات قعن جوز بريوا قعن جوز نبي قال لوجيني قعنت هالجويني أنت مركي واسك عضها إلا نبي قال لوجي ونسن عندنا وسن شرع الإسلام كانوا عندنا وقطر ونور دافين مركز سالي وريد أنت نبي قال لوجي ما ينودر نقف وراه أنا رسولك حكى قال لي قبر قعن لجوين كرمان مساكين تا قعنت هلا تشرو لكن قبر أنا وقبر لان ديرة وقبر الشرفة قعن لما جوين كره تنا فاضي نقطة قعن عندنا جورسين ميسي كقال لي ما نبي قال ليه مركز هو حلو در إن النبي قلت عليه الصلاة والسلام ولو رنشري أسامة ابن زيد نكي بقول رسول كلا وحن قاعد سنة يا أنت أهرن قبر داس وهذا قبر أهل الشرفة وحربنا ما رتيات لا قال لي قبر قعنت اللي جوين رسولك وحنا عليه الصلاة والسلام إلى صحابة كسفين بنده يدفورد وكذي أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة إلهي الدين تسيب إرجاء كتهيب ما إلهي الدين تسيب دعوة كتهيب ما حكم كإسلام كدعوة كتهيب أيها الناس رسولك مركب حوارك كسوة جبي ذاتك بقول هذا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم ومديه ذنك الكهري إنما هلك الذين من قبلكم ومديه ذنك الكهري وحبابي هلاقي أنهم إذا سرق فيهم الشريف قفي عن ونصف في عن ولانديرة وهو أهل الشرف ومعناها خطر حضو حضو تركوه اسكدا يدي كان كما لانديرة فرايك غير جري وإذا سرق فيهم الضعيف مد مسكين هو لانقاب على حد وصف سجى لا تهضو حضنا أقاموا عليه الحد حد يكون في جري رسول قال وحكسوا قبل ويم الله إلهي بان قدرتي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت هذه فاطمة إن النبي محمد وحده لقطعت يده كعنت شري فاطمة بنت محمد كبر كلا دارس أدون كما إيمان هرنا ما إيمان دبنا وما إيمان دوت مرأة المخزومية التي سرقت حاجات شوكتها هذه فاطمة حد بيو إن النبي محمد يا إن النبي محمد حده والله كعنت شري يده بس كذا واحد كلته هل كان رسول قوي كتاجنا وحلو يقانه قبيلة هل كان سو كتاجنا قبيلة marka islaamku wuxuu kansalay qabyaaladu horta waa nooc cibaado ah wanaad qabiil daba taagnaataa waa nooc cibaadana ilaahay baa iska subhanahu wa ta'ala diinta islaamku ma ogola waxa loo yaqaan taqdiis al-araf al-qabaliya dhaqamada iyo caadaadka qabiilka in la tixgeliyo ma ogola haday baadil tahay haday xaq tahay wala raacaya laakiin haday baadil tahay oo qofku iska daba galo limujarrad al-hawa qofku hawadiisa iska raaco halkaas ay ka taagantay النهي عن الطعن في الأنصاب وعن التفاخر والتعاظم بالآباء شريعة سوكل waxay reebtay in lagu faano qabiilka
ها يا أبياش يا أوياش يا ريادت كودي يا مآثر تودي يا واحد كتجين لقوا فانو أولي صانع هاينو أنا جو حويت ولا يجيل عند عشرين وما ده هنلين عشرين أنا نيجي معيري أنا عربيات بقى كوفانو عيري ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق الجهل جاهلنا ورهو يا أنا إذا درنا لا سؤال هذه إذا درنا لا سؤال إذا درنا هو ما صوينا marka qofku dhaqanka ku faano oo sax u faano wax sax ma rasuulka kaleey salaatu salaam maalmaha kamid waxa uu yimid jibriil markaasuu yiri ilaahay malag baa hawada ka soo degay malagaasu maanta ka hor ma soo degin horay ma soo degin marka waxa malagaasu ku oran doono waxa weeye bal dhageyso malagii baa soo degay malagii markuu soo degay ayuu malag waxaan ka dhigaa nabi maxamed بقر ميان كادجا نبي مثل وحن كادجا عبدا من عباد الله مركز جبريل نبي قال له عبدا من عباد الله دوره مركز بل أنا عبدا ورسولا أنا وحن دورت أظن ما دورت إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفتخر أحد على أحد واحد يتكلم في رسوله إلهي وحيودي أقول هذي إن نقف أفان قف نقف إسكسر رئيسين وأيو هذا قف والبابا ماشي إلهي سبحانه وتعالى ومدي سكجره وأوجه وكان حديث هذا الشيء إن الله قد جاء أفمريكا نبيا يجعلك إلهي موحو كادجا ملك نبيه أو عبدا رسولا يا لقادجا قال جبريل وحي تواضع لربك يا محمد إلهي التواضع مركز النبي وحي بل عبدا رسولا وحن ربعين لا يقدجه أدون رسولا لا يقدجه ومن صور التواضع في الإسلام صور التواضع في الإسلام قفكون إسليدا بلا الربا وهي وحويه إلهي سبحانه وتعالى بكاسر أوجه التعصب قابك قبيلة قفك يقول عضو سيارة بلا بيقول عضا horta waxa loo yaqaan qabyaaladu waa quluw iyo boombonis iyo kabadbadis iyo jacayl aad kuugu tagay oo meel dheer ka gaartay way marka siyaaraha qofka u saameeyo waxa kamid ah diin midba wuxuu qabyaalad xagga diinta baa ku jirta oo waa kaligiisa muslima ها هدات راي هبل يهبي كوخلا كوخ لي ما كو خلدين كلي مسلم باليادا وتعصب وقبيله حق دينته لما اوغلا حرام waxa kamid تعصب عرقي معناها waa jifada inaad u oroleysaa reerkiin waxa kamid ah تعصب madhabi oo xagga madhabka ah oo waxaad ugu aaminsan tahay waxa kamid ah inaad u oroleyso التعصب للجنسيه Soomaalnimada kaliya u oroleysaa waxa la Soomaalidu waa min ashraf khalqi Allah yahuud arinta ku caan baxday nahnu abnaa Allah wa ahibba ilaahay anagu doorto madaba anagu sarinay jinsiya yahuudi in jinsiyada ka sharaf badan tahay bay aaminsan marka aad tiraahdo lama ogola Soomaalida dadka ugu fiican ومر الله markii wax la soo qarabay tiraahdo iyaga ugu fiican iyaga ugu horeeyo sida Soomaali ka yihiin lama ogola waxa loo yaqaan التعصب للجنسيه waxa jira tusaalahan isaguna waxaan la ogola kamid ah التعصب للنادي الرياضي koox gaar oo ciyaartoy gaar iyo adiib ama amnin suugan yahan iyo gabya iyo fanaan gaar iyo waxyaalaha meel badan baa markasha وهذه مظاهر العصبيه بدات تنتشر لدى فئات من الناس dadka fatiyad daayarta ah dadka daayarta dhalinyarada bay aad ugu dhaxfaafaysa التعصب marka qabaliga ah waxa weeye ihtiqaar al-aakharin والتعالي عليه sidoo baashan taas ku saabjarta inaad umada iska sareysiiso inta kalena xaqirto adiguna aad tahay dadka ugu sareeya وهذا امر يدل على مركب النقص وضعيفنimo weey inaad arinta aaminto umadana ugu sareyso waa ضعيفنimo wax la ogol yahay ma su'aalaha darsigeena 10keena iyo dalaba hadaad soo fahantay qabyaalada iyo casabiyada iyo riyaadadkeeda iyo ma'aasirteeda waxa laga dhaxlo markaad soo fahanto akhda kadib waxa su'aalahan inaad ka jawaabto عرف العصبية لغة وشرعا قبيلة دقيق ما هي مآثر هالكوية مآثر العصبية القبلية مآثر ما حيتها سامينتا أي قفك كل ريبته قبيلة ما حيد حلسي سامعنا أدول يا آخر قفك سمحوا لي ما حكم العصبية في الإسلام إسلام عصبية يا قبيلة أقولي هدوس أقولي هي تيب أقولي ها تيب أقولي هل يجوز الطعن في الأنصاب والتفاخر بالأحسان ما بنانتهاي تذكرنا أفانتو يستنا قفكو أنا إسسريسين إسا ككلنا ويسيسا أطعنوا في الأنصاب قفك نصبتكو يسيسا ها ريركو نسام بها ما بنانتها بنانت أدونا الحقا إسكسريسو لماذا حرمت الشريعة الإسلامية عن العصبية قبيلة الشريعة محي ممنوع وجوجس ما السبب ها شريعة waxay joojisay bila sabab maaha laakiin sabab ay joojisay sababta cadde
ما هي أوجه التعصب صدح أما لبا كقر أوجه التعصب قاببك قفك عسبيده وأسمين كرو هالكاس بل أنه كوها كنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحالك نقول ما رجبتر كي أفراد تربية بهالك نوجسو جبجبوي الحديث والثقافة أفرت درسي بوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته